Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan idinka soo hadlaynaa waa koorsaheenii aan ku baranaynay luuqadda englishka ah. Naga raali ahaada asxaabteena ku nool gudaha iyo dibadda Maraykanka, Yurub, Afrika, Aasiya iyo Ameerika. Waxaan leenahay naga raali noqdo, xoogaa barbalam ayaa jiray, waana xalinay alxamdulilah. Markaan toos u socnay casharkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay mahadsanid. Dhammaantiin aan idin leeyahay mahadsanid dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay dhammaantiin mahadsanid sida wacan aad noola socotaan, aad noo dhegeysataan. Annagana insha allah waan ku dadaalaynaa si luqadda idinka dhisi lahayn dhinac kasta. Caawa casharkeena wuxuu ku saabsan yahay waxa la yiraahdo grammatical construction words. Grammatical grammar, shay grammar ah. Construction dhismo grammar ah. Words kelimado dhisan oo habaysan oo grammar ah. Grammatical means wax dhisan oo grammar ah u dhisan waa. Number 1, a friend of mine phoned to invite me to a party. A friend of mine, saaxiibkayga ayaa phoned ayaa ii yeeray to invite inuu ugu cazimo, inuu ugu martiqaado me aniga to a party, xaflad. Party marxalada xisbi. A friend of mine, saaxiibkayga ayaa phoned ayaa ii yeeray to invite me inuu ugu cazimo, inuu ugu martiqaado to a party, xaflad. Number 2, we shouted, waan ku qaylinay. Qaylada maxay tahay? To one, inaan ugu digno everybody, qof kasta, of the danger, khatarta ee leedahay meeshaas. meel baa khatar ah. We shouted, waan ku qaylinay, to one, inaan u digno everybody, qof walba, of the danger, khatarta ee leedahay. Number 3, I get, waxaan noqday nolol cidlo. If there is no bad, haddii qofna jirin, to talk to, aan la hadlo, waan cidlooday waa marka. I get lonely, waan cidlooday. If there is no bad, haddii qof aanan jirin, to talk to, aan la hadlo. Number 4, the governor, maamulihii gobolka, has a team, wuxuu leeyahay koox of bodyguards oo ah kuwa wax ilaaliya asaga. To protect him, inay asaga ilaaliyaan, ay difaacaan. The governor, maamulihii gobolka ahaa. The governor, maamulaha gobolka ahaa, has a team, koox ayuu leeyahay, of bodyguards oo ah kuwa ilaaliya asaga, ilaalo khaas ah. To protect him, inay asaga ilaaliyaan, ay difaacaan. Number 5, I need, waxaan u baahday few days, dhowr maalmood, to think about, inaan ka fikiro wax ku saabsan your proposals, hindisahaada. I need, waxaan u baahday a few days, dhowr maalmood. I need, waxaan u baahday a few days, dhowr maalmood, to think, inaan ka fikiro about wax ku saabsan your proposals, hindisahaada. Let's go to the pool for a swim. Let's go, ina keen aan aadnay, to the pool, barkada, for a swim, dabaal aan u aadnay, ina keen aan soo dabaalano. Number 7, leave early so that you don't miss the bus. Leave early, degdeg u soco, u dhaqaaq degdeg, so that, saa daraaddeeda, you don't miss, ma seegareynaysid, ma gafaysid, the bus, baska soconaya oo iskuulka ama xafiiska, ma seegareynaysid. Leave early, u degdeg, dhaqso, so that, saa daraaddeeda, you don't miss, ma seegareynaysid, ma gafaysid, the bus, baska iskuulka ama baska xafiiska ku tegaysid. Number 8, I hurried, waan degdegay, so that, saa daraaddeeda, I wouldn't be late, ma daahay aniga. Because maxaa yeelay, I didn't want, ma rabo aniga, to be late, inaan halkaas ka daawo, ma rabo. I hurried, waan degdegay, so that, saa daraaddeeda, I wouldn't be late, ma daahay. Because maxaa yeelay, I didn't want, ma rabo aniga, to be late, inaan daaho. Number 9, what did you do for that decision? What did you do? maxaad u samaysay for that action? falkaas maxaad u samaysay adiga?
what did you do maxaad u samaysay for that action falkaas maxaa u samaysay what did you do maxaad u samaysay for that action falkaas waa su'aal number 10 I am likely to be late home this evening I am aniga likely waxaa dhici karta ama waxaa dhicaysa to be late inaan ka daa home guriga this evening maqribkan I am likely waxaa laga yaabaa likely means probably I am likely waxaa laga yaabaa to be late inaan ka daaho home guriga this evening maqribkan inaan guri ka daaho ayaa u maleeyaa number 11 please fadlan stay away from my trees don't get involved into my personal affairs please fadlan stay away ka leexo from my trees raadadka aan ku soconay aniga wareha raadadkii ka leexo igarmar don't get involved ha ku lug lahaanin into my personal affairs afaaray shakhsi anta u leeyahana ha ku lug yeelan adiga iska ilaali please fadlan stay away ka leexo from my trees raadadkayga don't get involved ha ku lug yeelanin haddana into my personal affairs afaarayga shakhsi aan leeyahay aniga arrimahayga shakhsi aan leeyahay ha ku lug lahaanin ka dhaqaaqo number 11 in the academic year of the school is going to end in the academic year sana dugsiyeedka of the schoolka is going wuxuu u socdaa to end dhammaad waa dhammaanaya sana dugsiyeedka u dhammaanaya in the academic year sana dugsiyeedka of the schoolka is going wuxuu u socdaa ama wuxuu ku dhow yahay to end inuu dhammaado number 11 a report maxaa leedaha warbixin report iiso qoraal u dhahay waa iyadoo report waa soo qaadan doonaa insha allah a reportiga warbixinta is an accurate waa mid sax ah account waa faala sax ah oo record ama wax la qoro of what happened oo dhacay oo markaas laga sheekay wixii dhacay oo si sax loo qoro iyadoo hubaal ah dhinacna aan leexanaynin ayaa waxaa la yidhahdaa report a report is an accurate account waa faala sax ah or bilaa la furay or ama record waa wax qoran of what happened oo dhacay waa wax dhacay a reportiga is usually sida badanna a report warbixinta is usually sida badan written waa qoran yahay by waxaa qora the person qof who witnessed kaasoo ah mid goobjoog u ah an event dhacdaas markaas dhacaysay goobjoog ayuu ahaa ama ha noqdo warbixin iskuul la faalaynayo ama arday wax laga sheegayo ama ha noqdo faalooyin oo laga hadlayo macnaha dhacdo boliis iyo tugo la eryanayo reporta laga qoraa marka reportkaasa la yihahdaa reportiga is usually sida badan ama sida caadiga ah reporti warbixinta is usually sida badan written waa qoran yahay by waxaa qora the person qof who witnessed kaasoo witnessed goobjoog u ahaa an event dhacda markaas dhacaysay number 14 whatever you be I will settle you a dirt rascal whatever you be wax kastoo ahaataba waryahe I will settle you waa ku dejin doonaa a dirt rascal ayaa suqliyo dhusuqlaha anaa ku dejin doona adeeg whatever you be wax kastoo ahaataba I will settle you anaa ku dejin doona a dirt rascal ayaa suqliyo dhusuqlaha wasakha reebaha anaa ku dejin doona halkaas aan ku gabagabeynay intaas uu ekyahay insha allah toosa wadi doona markaan nagaraal ahada waa mahadsantii dhammaantiina waxaan leenahay saxaabteena ku cusub subscribe waxaan leeyahay saxaabteena ku cusub subscribe hanu saarano like taana ilowna like ta dhiirgelinteena soo kale follow nu dhaha bag aan ku leenahay facebooka casharada hadda kadib joogteena noqon doonaan nagaraal noqda mahadsanid dhammaantiina كومنت نو صغر وحي حوغا ولا شنو نقد السلام عليكم ورحمة الله